Eritrea ayaa war cusub ka soo saartay ciidanka dalkeeda ku sugan. Fariinna waxay u dirtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh. Dowladda ka shaqeynaya xumeynta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea ay bannaanka keentay iyo xog muhiim oo laga helay. Warbixintan ayaan kula wadaagi doonaa madaxweynaha Eritrea oo afka furtay kana hadlay arrinta ciidanka Soomaaliya ee dalkaasi ku sugan. Waqtiga la soo celinayay iyo sababaha kalifay inay muddo dheer qaataan in dalka ay ku soo laabtaan. balse marka hore sheegaray warbixintan idinkoo qaybta faalada nagula wadaagi karaya aragtidiina waa xigaaga aan ka bilaabo. Madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki ayaa soo saaray bayaan oo kaga hadlayo ciidanka Soomaalida ee ku sugan dalkiisa iyo xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Eritrea. iyadoo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda aysan arrintan ka hadlin, Eritrea ayaa bannaanka keentay xog muhiim ah oo ku saabsan ciidankan iyo waqtiga dalka lagu soo celinayo. sidoo kale waxay ka hadashay Eritrea muuqaal dhowaan warbaahintu ay si qarsoodi u heshay oo Xasan Sheekh Maxamuud uu duubay markii uu talada la wareegay oo ku raali gelinayay madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki. dowladda Eritrea ayaa arrimaha ay ka hadashay ee la xiriira markaasi xiriirka Soomaaliya iyo markaasi Eritrea, ciidanka Soomaaliya ee dalkaasi ku sugan iyo xogo kaleba oo ay bannaanka keentay waxay kaga hadashay arrimahaasi. bayaan ka soo baxay dowladda Eritrea isla markaana lagu daabacay wakaalada wararka ee Shabayt ayaa waxaa si gaar ah looga hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee haatan u dhexeeya xukuumadda Asmara iyo Muqdisho. Eritrea shaaca ka qaaday inay jiraan dalal reer galbeed oo soo xumeynaya xiriirka labada dal kadib isbedelkii Soomaaliya ka dhacay 15 May ee sanadkan, taasi oo ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka adkaatay madaxweyne Farmaajo. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in haatan uu sii xoogeysanayo iskaashiga ka dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya gaar ahaan dhinaca amniga, balse uu jiro buuq ay ku furayaan xiriirkan qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka kuwaas oo aan la shaacin. isku xidhnaanta sii kordhaysa ee labada dal gaar ahaan dhanka difaaca iyo amniga waxa ay dhalisay guux weyn oo diidmo ah oo ka imaanaya tiro dalal reer galbeed ah, waana munaafaqnimo weyn oo ku qotanta isla weyne ayaa lagu yidhi warbixinta ay daabacday wakaalada wararka ee Shabayt. sidoo kale dowladda Eritrea ayaa sheegtay inay abaal u hayso Soomaaliya oo hore taageero ugu fudisay dalkan oo dhaca Geeska Afrika. wada shaqeynta joogtada ee labada dal ayaa dhab ahaantii ku qotanta taariikh dheer oo wadajir ah, iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay koox yar oo jalayaal ah oo taageero u fidiyay Eritrea halgankii dheera ee xorriyadda ayaa mar kale lagu yiri bayaanka Eritrea. ugu dambeyn dowladda Eritrea ayaa hoosta ka xariiqday in iskaashiga labada dal uu sii soconayo ayna iska kaashanayaan amniga, gaar ahaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo haatan loo arko inay halis ku tahay guud ahaan amniga gobolka ama geeska. labada wadanba waxay garwaaqsan yihiin in dagaalka argagixisada Soomaaliya uu yahay xasiloonida iyo amniga guud ahaan gobolka Geeska Afrika oo dhan, ayaa lagu yiri laguna soo gabagabay warbixinta ay ka soo baxday dowladda Eritrea ee lagu qoray Shabayt. wadanka Eritrea ayaa waxaa haatan ku sugan ilaa iyo 5,000 oo askari kuwaas oo tababar u jooga dalkaasi oo 2 goor booqasho u tagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. siday muujinayaan xogaha amni ee ka soo baxay wadanka Eritrea, dowladda Eritrea ayaa arrintan si weyn uga hadashay iyada oo sheegtay inay tahay mid u baahan in si degdeg ah wax looga qabdalo, isla markaana loo baahan yahay in dowladnimada Soomaaliya iyo Eritrea xiriirka ka dhexeeya ee walaaltinimada oo noqdo mid iskaashi ku dhisan oo labada dal ay si wadajir uga shaqeystaan. arrintaas oo noqon karta mid markaasi ka dhiganaan doonta in mas'uuliyiinta ay markaasi si toos ah xiriir ula lahaadaan wax walba oo ku saabsan arrimaha la xiriira in halgan looga wada guuleysto. sheegay xawaan qad falan guluda aragtiin tan iyo kulan doonad galiyo.